Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booqasho ku jooga dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa kulan la yeeshay dhaxal sugaha Abu Dubai ahna ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kulanka Ra'iisul Wasaare Roble iyo Sheikh Zayed ayaa diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal sida lagu sheegay qoraal uu baahiyay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble. wakaaladda wararka dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in dhaxal sugaha Dubai Mohammed bin Zayed uu uga mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u cambaareysay falkii argagixiso ee kooxda Xuutiyiintu ay la beegsadeen xarumaha rayidka ee Imaaraadka isagoo u rajeeyay horumar iyo barwaaqo dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble oo xaddi gaaray Dubai ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Isutaga Imaaraadka Carabta ahna Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Mohammed bin Rashid kaasi oo ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo dhoofka xoolaha Soomaalida ee loo iibgeeyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. mar uu 7 Janaayo ka hadlayay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayuu Ra'iisul Wasaare Roble ka raaligeliyay dowladda Imaaraadka dhacdadii ay hay'adda sirdoonka ee NISA ugala wareegtay lacag gaaraysa 9.6 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishii Abriil ee sanadkii 2018. si kastaba booqashada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee magaalada Dubai ayaa la rumaysan yahay inay salka ku hayso hardanka doorashada madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya maadaama ay loolan adag ugu jiraan dalalka khaliijka inay saameyn ku yeeshaan cidda fariisan doonta filla Soomaaliya.